waxay sameynayaan masaajidkii bay goor hore soo gelayaan salaadaha ka hor safkii dadku ku tukan lahaa buu wax dhigayaa مثل عسر buu tukaday go'isiibu meesha dhigaya ama imaamadii muxuu rabaa inuu soo noqdo salaadii maghrib inuu soo noqdo rabaa iyo wal mashi su'ud loo socdo lil masjid masaajidka wa ta'alluqi bihi iyo masaajidka oo qalbiga lagu xidho wa idraaku iyo in la haleelo oo la gaaro takbiirat al ihram Allahu akbar ta salaada lagu xidho والصف الأول هي صفك هراء رفعة للدرجات انت أصوات هشو وحي سرع قادد تهي إلهي كرك وقاضية درجات كوريا شعر انتاس ومن تمام صلاة دم يستير كذا وحا كمدا الحرص ساتك والله صوق لي صلاة دي والله أقيمي دتك واستاجين إلا قال لدونيا دم يستير كذا محاكم دا مركب ومن تمام صلاة دم يستير كذا وحا كمدا الحرص ددال لقو دداله على تسوية الصفوف صفوف تسميدودا والتراصي إيوه اسكو ددشينتو دا اسكو ددشيو معنى على لغة كذا صفك كله لقو ددشيا معها وقفك كله وإنه كل جنادا دحدو داني بنانانين ماشي لا اسكو ددشين يا مركا واحد دد كأنه waxay isku dhajiyaan fariyarada oo la isku dhajiyaa sax maaha sunnana maaha saxna maaha sunnuhu dadku isma cagal leeka laakiin meel baa la iska cagal leegiye cidbaha la iska cagal leegiye qofka kale cidibtiisa waa inuu cidibta ugu qabtaa marka waxay keenaysaa salaadii inuu safkii xaqii dambe oo dhasaa u simeeyay hadii dhirirkoodu isgaarana garabka waa in garabka ugu qabtaa marka cidibta rasuulku wuxuu oran jiray war salaada cidbaha iyo garbaha ka sima watarasi isku dhadajid fiha salaadii dadkii tukanayay saa isugu dhajiyaan kama tasuffu al malaa'ikatu siday malaa'iktu u safato inda rabbiha rabbigeed agtii waxa kale oo dhameystirkeeda salaada kamida wa tadabbar inuu qofku micnaha dhuuxo oo ku tadabburo ma waxa yutla la akhrinayo salaada gudaheeda ومن الآيات آية إيا وما وحا يقال لأورانيو ومن الأذكار أذكار تأوح لأورانيو إن قفك هذا تدبره الكاس وحيابها مهم كأن قلنا استحينا وحا كمدا دادكينا وناكساني سلادة كدقار كوت أن شقي عمل بدن كفو وقنين مساجد كهريريه سيئة مهردها كله يميلها inta badan joogay u badan ee iska fadhiya waa inay ku dadaalaan masaajidka inay laba qodob sameeyaan maadaama uu masaajidkii qofkii ku agdhow yahay maadaama uu qofku masaajidkii salaada uu rabo inuu ku tukado maadaama aanu qofku shaqo haynin markaa ku mashquulsan yahay laba qodob ha ku dadaalo waa qodobka koowaad salaada inuu masaajidka goor hore soo galo oo adinka ka horna masaajidka soo gashid iyo inaad safka hore ku tukatid hadaa safka hore weydidna safka ku xiga inaad ku tukato sidoo kale waxaanu baraarujinaynaa walaalaha musalliinta ee tukada qaarkood waxay sameynayaan masaajidkii bay goor hore soo gelayaan salaadaha ka hor safkii dadku ku tukan lahaa buu wax dhigayaa laba qaab marka way sameeyaan sida aniga iga muuqatay hadda masaajidkeenan mesela labada qaab waxa kamid ah salaadaha kuwa isu dhowdhow oo kale qofku wuxuu sii dhigayaa meeshii mesela casr buu tukaday go'isiibu meesha dhigayaa ama imaamadii muxuu rabaa inuu soo noqdo salaadii maghrib inuu soo noqdo rabaa ama maghribkii buu tukaday markaasuu maradiisii meesha dhigayaa wuxuu rabaa inuu soo noqdo marka la aadimo cishaayiga ka bacdi inuu yimaado arintaasi waxaan leenahay ilaahay ka cabsada oo salaadiinan aad tukanaysaan xasanaadka badan aad ka helaysaan ha iska nusqaaminina ajarkeeda oo dadka ha dhibina masaajidka adigu meelaad ku leedahay ma jirto masaajidkan waa baytullaahi wey sufuufta waxaa loo kala leeyahay sida loo soo kala horeeyo meesha marka adigu hadaad fadhiisanaysana fadhiiso oo maradaadi dhigo
way bannaan tahay haddii aad masaajidka gudihiisii joogto inaad halkaa hore maradaada dhigato xaggan dambe aad kursi ku fadhiisato ama xaggan qur-aan ku akhrisanayso dee nin masaajidka ku jiraato ma maqnid waa sax maxaa khalada laakiin meeshii inay adiga kuu xanibanta oo qof kaa soo horreeyey hadduu soo galo meeshii yimaado dhow inaad asraartan iyo muran haddaadan laba dagaalamin inaad ku samayso waa qalad